kusoo dhawaaw video oo ah sida uu u shaqeeyo website-ka. Waxaan kuu sharxi doonaa inta basic ah aanuna aad ugu xeel dheeraan doonin farsamada, sarfarada iyo domain-kaba. Waxaan ka hadli doonaa website-ka waxa uu kuu qabanayo iyo sida aad ku ogaan kartid waxaad u baahan tahay. Tusaale, haddii aad go'aansatid inaad furatid goob lagu iibiyo qalabka IT-ga ama cuntada ama adeegyo kaleba lagu qabto. Tilaabada koowaad waa inaad kiraysataa meesha aad ku shaqayn lahayd, sax? Website-kana waa sidaas oo kale. Meeshii aad ka kiraysan lahayd waddo weyn waxaad ka kiraysanaysaa sarfarka ayaad meel ka kiraysanaysaa. Sarfarka waa kombiyuutar ku xiran internetka, kaas oo leh software kuu oggolaanaya inaad ku kaydisid ama ku hoostigaraysid website-kaaga, koodkiisii, sawiradiisii, fiidiyoyaashiisii iyo wax kasta oo ku saabsan website-kaaga. Sarfarka waa adeege maxaa yeelay wuxuu si fudud u soo saaraa nuxurka saxda ah marka uu qof codsado ama marka uu qof rabo inuu fiiriyo page ka mid ah website-kaaga. Sarfar kasta oo adduunka yaalo wuxuu leeyahay ciwaan u gaar ah oo lagu garto. Ciwaankaasna waxaa loo yaqaanaa IP address, kaas oo u shaqeeyo sida lambarka gurigaaga. Ciwaanka website-kaaga ama domain name-kaagu wuxuu la mid yahay magaca shirkadaada ama organization-kaaga. Magaca domain-kaagu waa sida ay kugu heli doonaan macaamiishaada mustaqbalka, ama aan dhaho waa goobtaada dhabta ah ee macaamiishu ka heli lahaayeen. Ayagoo fiirin doono calaamadda albaabkaaga ka sarreysa. Si aad u hesho website allaale website-ka aad rabtid, waa inaad ku qortaa browser-ka magaca website-ka aad raadinaysid, tusaale www.warancloud.com. aad ayay muhiim u tahay arrinkan. Ciwaankaaga device kasta oo raadiyo hadday noqoto laptop, smartphone ama tablet-yaba wuxuu toos ula xiriiri doonaa sarfarka. Sarfarku device-kaas wuxuu u soo dirayaa dhammaan qaybaha saxda ah oo uga baahan yahay inuu u soo bandhigo, sida sawiradii, koodkii, si qofka isticmaalaya device-kaas u arki karo page-ka